بسم الله الرحمن الرحيم. بوغا مغيسو waxaa la yiraahdaa way we sleep. maxaynu u seexnaa. wuxuu ka warramayaa aragtiyo cusub oo ku saabsan sababta uu qofku u seexdo. hurdada in la seexdo baynu aragnaa, laakiin xigmadda ka dambaysa iyo sababta loo seexdo ilaa hadda qofka uma cadda in yaroo kooban mooyaane. qoraagu wuxuu eegayaa habab cusub oo qofku marka uu seexdo يعني waxyaabo badan baa hurdada dhexdeeda yimaada. hurdada ka horna waxyaabo badan baa jira. marka uu ka warramayaa aragtiyo cusub oo ku saabsan hurdada marka lagu jiro waxa dhacaya ka yimaada, haday tahay riyada iyo haday tahay waxyaabaha la midka ah. waa buug aad u muhiim ah. waxa qoraa Matthew Walker wuxuu ahaa qoraa weyn muddo badan wax qoray. buugu wuxuu ka mid yahay buugta la yiraahdo international best-selling, buugta caalamka ugu iibsiga badan buu ka mid yahay. shirkado badan waxaan jeedaa wargeysi badan baa wax ka qoray. wargeysada wax ka qoray waxa kamid ah Guardian waxa tahay Sterling Fatal Life Raft. waa buug muhiim ah nolosha qofku sidoo horumar u gaari lahaa. xagiista buuga aynu eegno warbaahinta waxyaabo badan ka tiri buuga markay akhriyeen kadib waxa kamid ah warbaahinta la yiraahdo sidoo aragtaan Guardianku markay buuga faalada ka bixinaysa waxay leedahay waa buug neuroscientist oo cadeynaya hurdada wanaagsan ee qofku habeenkii uu seexdo markuu indhaha isku qabsado siday qofka ugu dhigi lahayd mid clever mid xariifa ama mid soo jiidasho badan ama qof farxad badan ama qof inta la caafimaadku wanaagsan yahay. hurdadu waxyaabaha ay keento ay marka sheegaysaa ay leedahay Guardianka Guardianka ayaa marka ku qortay. jiridada labaad waxa ka qortay waxa weeyaan qoraaga la yiraahdo Rachel Cook oo observer ama mutaqaanay inta badan wax falanqeeya. wuxuu leeyahay passionate argument and powerful effect on me. buugan waa buug muhiim ah noloshayda wax badan buu ka metelay. waxa uu ka warramayaa wax badan buu markay soo koriyay. shabakada saddexaad waxa ka qortay waxa weeyaan Sunday Times waxa leedahay compelling and convincing. buugan waa buug qofku wax badan ka qancinaya sidii uu markuu taga sariirtiisa wax badan soo kordhin lahaa ka warramaya. Financial Times yadna waxay tiri in buugan buug muhiim yahay bay sheegtay. New York Times sidoo lafteedu buugan aad bay u amaantay wax badan oo ka sheegtay qofku inuu ka korodhsanayo. buuga qiimihiisa aad buu jaban yahay, waa $5 oo kaliya sida halka idinka muuqata. markii hore wuxuu ahaa 15 ama caalamka intaas laga siiyaa. waa buug muhiim ah, waa buugan qof kasta kula talinayo buuga inuu akhriyo. akhriska hal kordhiyo buugta noocan wax badan bay noloshiina ku darsanayaan. hal akhriyo akhriskana hal badiyo.